qarax ismidaamina oo lala eegtay saldhig militariga amisom ay ku leeyihiin magaalada Beledweyne ayaa waxaa laga soo sheegayaa in khasaare dhimasho iyo dhaawac isugu jira halkaasi ay ka dhaceen sida warkan uu ku faahfaahinayo Maxamed Khadar oo nooga soo warrama magaalada Beledweyne. halkan waa saldhigga ciidanka amisom gaar ahaan ciidanka Jabuuti ku leeyihiin magaalada Beledweyne oo lagu weeraray gaari qarax oo nuuciisu ay Soomaalida u taqaano dheynada kaas oo la eegtay afaafka hore saldhigga taasoo inta badan dhawaqiisa laga maqlay xaafadaha magaalada Beledweyne iyo deegaanada u dhow iyadoona waxyeelada qaraxa u geystay lagu arkay goobta uu qaraxa ka dhacay oo burbur xooggan uu ka soo gaaray saldhigga inkastoo saldhigga gudaha uusan u galin qofkii naftii huraha isqarxiyay qaraxan la eegtay saldhigga ciidanka amisom gaar ahaan ciidanka Jabuuti ay ku leeyihiin xaafadda Holwadaaga magaalada Beledweyne ayaa waxa uu ahaa kii ugu xoogganaa sanadadii dambe ka dhaca magaalada inkastoo khasaaraha ka dhashay uu yaraa afayeenka maamulka gobolka Hiiraan Maxamed Cabdinuur Dabaasho warbaahinta kula hadlay goobta uu qaraxa ka dhacay ayaa waxa uu sheegay inuu yaraa khasaaraha ka dhashay qaraxan ismiidaaminta ah kooxdan alqaacidada ee axdiidka oo dhibaatada Soomaaliya ku haysa ummadda Soomaaliyeed gumaadka ku haysa ee ugus ayaa maanta waxay sameeyeen baawar inay ku soo rareen waaraad ah bal ayagoo ka dhigaya bal dadka shacabka xoolihiisa iyo dadkiisa loo wado ayay waxay la beegsadeen meel ciidamada dawladda Soomaaliyeed iyo kuwa amisom ee midowga Afrika gaar ahaan kuwa heel walaal ee dalka Jabuuti ee walaalaha aan nahay runtii wixii khasaare ah hadda kulay wili waan arki doonaa hadii Ilaahay yiraahdo laakiin hadda wax saas oo khasaare ah kama dhicin way iska caabiyeen runtii waana laga guuleystay halkaas waa ninkii naftiisa haligayay diintiisa iyo dalkiisa iyo dadkiisaba u baasbaxay ee beenta ka sheegay naftiisa iyo maalkiisa ee halkaas isku haligay ayaa ku dhintay kulay wax kale oo naf iyo maal oo khasaare halkaas ka jira kama dhicin waxaan u sheegaynaa inay shacabku ay la shaqeeyaan dawladda aan wax ka suuro galaa ma jiraan waana aragteen markaan waxay reebayaan ma jiraan runtii dawlad ma rabaan dad kale ajaaniba ma rabaan waa dalka iyo dadka Soomaaliyeed ay ku soo duuleen waad ogtiin hadda goobaha laga soo baxay sida Cali iyo Boqor weerarkan maanta lagu qaaday saldhigga ciidanka Jabuuti ay ku leeyihiin magaalada Beledweyne ayaa waxaa la sheegay inuu khasaare ka soo gaaray ciidanka Jabuuti iyo dad rayid ah inkastoo khasaaraha ka soo gaaray uu yaraa Maxamed Qadar Cabdulle Somali Cable TV Beledweyne.